السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب السود هذا أصحابته وحينو سعودي عشرة امتحانها مادة حسابتها خاصة تكسي السريع جب تركيها تريغنومتري waxaan isla fiirin doonaa hadduu ilaahay qadaro maanta ciwaan kaasoo ah proofing Pythagoras theorem haddaba dhammaanteen waxa la yiraahdaa waxaaynu garanaynaa oo intaas aynu soo dhiganay j square c square waxay la macno tahay a square plus b square ma maxay c square waxay la macno tahay a square plus b square haddaba maanta waxaan rabnaa inaynu maadaama aynu ka hadlayno wax la yiraahdo trigonometry waxaan isku dayayn doonaa maanta hadduu ilaahay qadaro inaan proof gareyno qaabka ay ku timaaday iyo sida ay ku timaaday haddaba intaanan proofin marka koowaad wax la yiraahdo waxaynu ka bilaabi doonaa inaynu marka koowaad wax la yiraahdaa proofingkeena waxaynu ka bilaabi doonaa in aynu sawirno wax weeyaan square marka koowaad square baynu sawirnaynaa square-ka muxuu caan ku yahay ama astaamaha lagu garto square-ku wax ka ah all sides are equal dhammaan dhinacyadiisa oo dhan waxa la yiraahdaa waa inay isla ekaadaan yani waa maxay dhinacan hadduu 4 centimeter yahay dhammaan dhinacyada dhan waxa la yiraahdaa must be 4 centimeter waa inay noqdaan okay aan sawirayaa square baan sawirnayaa anigoo ku dadaalaya dhinacyadeedu waxa la yiraahdaa in ay isla ekaadaan okay tusaale waxa la yiraahdaa waxaan haystaa square-kaasaan haystay marka square-ka markii aan haysto waxa aan dhex gelinayaa square kale aan dhex gelinayaa square kale baan dhex gelinayaa waxa laga yaabaa qalinkaygu de inuu si qurux badan u sawiri waayo okay haddaba square-ka markii aan dhex geliyo asxaab waxaan sameynayaa marka koowaad waxaan square-ka hadda labaad aan sawiray dhinacyadiisa base-kiisa oo dhan waxa la yiraahdaa baan muujinayaa yani tusaale ahaan oo kale dhinac kastana waxaan ku cadeynayaa kan hadda sawiray inuu yahay waxa la yiraahdo c yani halkaasi waa c halkaasi waa c yani meesha number ugu qaadan lahaa xaraf baan u qaadanayaa letter baan u qaadanayaa c halkaana waxaan u qaadanayaa c baan u qaadanayaa inta markii aan u qaato kadib waxaan sameynayaa dhinacyada soo haray oo square-ka weyn dhinacyadiisaan muujinayaa haddaba halkaasi maadaama ay ka sawiran tahay theory halkaasi maadaama ay ka sawiran tahay wax la yiraahdo triangle base-kiisina waa kan height-kiisina waxaan ku calaamadinayaa inuu yahay a inaan u qaatay halkana waxay noqonaysaa kan kale base-kiisi halkana waxay noqonaysaa kan kale height-kiisi yani saasaan u sawirayaa kana waxay noqonaysaa base-kiisi kana waxay noqonaysaa height-kiisi kana waxay noqonaysaa base-kiisi kana waxay noqonaysaa height-kiisi in waa maxay kanaan ka bilaabay base baan iri automatically kan height buu noqonayaa kan height maadaama uu noqday kana base buu sii noqonayaa yani mid markaas uu dhaho ku soo wareeji marka haddaba intaa markii aan isla sawirnay oo inta aynu sawirnay waxaan ka bilaabi doonaa waxa weeyaan in aan saaro aan soo raadiyo area of square-ka weyn areas aan rabaa inaan soo saaro haddaba area-da square-ka weyn ee 1 baan u bixinayaa waxa ay la mactaamaan leh square-ka waxa lagu helaa l oo square garaysan baa lagu helaa yani square-ka area-diisa l oo square garaysan baa lagu helaa kadibna waxa la yiraahdaa a 1 waxa ay la macno tahay dhinacyadiisu marka waa maxay fiiri dhinacyadiisu waxa waa a oo lagu daray b dhinaciisa oo dhan waxa la yiraahdaa waa a oo lagu daray b sababtoo ah haddii aan saan haysan lahaa tusaale halkaas haddaan haysan lahaa tusaale ahaan oo kale 10 waa anoo saa kuu kala jaray waan ku iraaday intaana waa 5 intaana waa 5 hadhow maxaad samayn lahayd waa isku darsan lahayd kadibna marka waxaan leeyahay waa a oo square gar a oo lagu daray b oo square garaysan weeyaan kadib waxaan rabaa inaan xalino haddii baashaadu sida ay tahay tusaale ahaan oo kale qaabkaagu laba option laba way waa u xalin kartaa inaad sidii caadiga ahayd aljabrada isugu dhufato aad dhahdo a plus b lagu dhaftay a plus b inaad dhahdo kadibna kana kan ku dhufato kadibna kana kan ku soo dhufato kadibna kana kan ku soo dhufato kadibna kana ku soo dhufato sidaas wax la yiraahdaa waa form 3 form 2 level weeyaan marka adigu maadaama aad wax la yiraahdaa aad tahay class form 4ka short way baa la rabaa inaad xaliso short way-ga waxa xalinaysa wax kale ma ahan waxa sameynaysaa waxa u xalinaysaa kan koowaad square garay
a times a waxa la yiraahdaa waa a square kadibna waxa sameynaysaa labada halka taala isku dhufo a times b waa ab waxa ku sii dhufataa 2 kadibna calaamadeedu waa plus wax meynaysa ma jiraan waxa leeyahay plus lagu daray a times b waxa weeyaan ab ku dhufo 2ab 2ab lagu sii daray kadibna waxa weeyaan waxaan leenahay b-dan square gareynayaa b square garay yani hadda waxaan la soo baxnay area-da square-ka weyn area-diisa baynu la soo baxnay haddana waxaan raadinayaa marka square-ka gudaha ku jira area-diisa rabaa inaan la soo baxo isaga waxaan la baxayaa area 2 baan la baxayaa area 2 na maadaama uu yahay square waxa lagu helaa l oo square gareysan baa lagu helaa area 2 waxa ay la dhigantaa baan leeyahay dhinac kasta wax leedahay dhinacyadiisu waa c yani waa maxay waa c oo square gareysan weeyaan isaga ma maxsabtu ah dhinaciisu waa c oo square gareysan weeyaan haddana waxaan rabaa inaan la soo baxo triangle baa meesha yaala fiiri kana la soo baxay square-ka labaad baan la soo baxay square-ka saddexaad waan la soo baxaya rectangle imise rectangle baa yaala fiiri 1 2 3 4 hal rectangle baan la soo bixi doonaa wax la yiraahdo hal rectangle baan waxa la soo bixi doonaa wax la yiraahdo area-diisa kadib 4 baan ku dhufan doonaa maadaama 4 ay yihiin rectangle triangle-kana waxa uu bixinayaa inuu yahay marka area 3 inuu yahay baan la bixi doonaa triangle-kan area-diisana waxa lagu helaa half base height baa lagu helaa hadhow anagu maadaama 4 xabaanay xabad baan la soo baxi doonaa 4 baan ku dhufan doonaa marka kadib waxaan leeyahay area 3 waxa ay la macno tahay half base-kaygu waa base-kii b baan u qaatay height-kaygana maxaan u qaatay meel kasto height ah a baan u qaatay kadib waxa inta maxaan ku dhufanayaa marka waxaan ku dhufanayaa dhinacaas oo dhanna waxa la yiraahdaa 4 baan ku dhufanayaa sababtan 4 ugu dhufanayana waa ku sheegay 4 xabo ayaa meesha yaala kadib markaan ku dhufato inta waxa iga soo baxaya area 3-deydu inay ileeg tahay 2a b alphabetical order-ka hada soo marso b a baa ka soo hormaraysa marka hadaba inta marka asxaab aynu garanayno hadaba waxaan leeyahay fiiri inner area-da gudaha ku jira waxa ay leegtahay waxa la yiraahdo outer area-da waxa la yiraahdo hoosta ku jira ayay leegtahay inner area is equal to outer area bay leegtahay kadibna waxaan sameyn doonaa inner area imisa gudaha igu jira waxa igu jira area 3 iyo area 2 baa igu jira sababtoo ah labadoodu square kana hoos buu ku dhex jira shape ku dhex jira saddex xagaladuna waxay ku dhex jiraan shape ku dhex jiraan inner area ku gudaha ku jira waxa weeyaan baa leeyahay waa area 2 oo lagu daray area 3 waxa ay leegtahay baan leeyahay area 1 bay leegtahay kadibna waxa leeyahay waa ku badbadelanaya area 2-deedu waa imisa ay leegtahay waa c square lagu daray area 3-deeduna 2a b area 1-teeduna imisa ay leegtahay area 1-teeduna waxa ay leegtahay asxaabay a square lagu daray 2ab lagu daray b square hadaba halka marka marayso fiiri labada tani waa iskanseli doonaan sababtoo ah halkana way ku jiraa tusaale kan hadaan wareejin lahaa oo halka wareejin lahaa negative ku wareegi lahaa saladeedu iskanselayaan halka waxa iga soo haraya marka c square waxa ay la macno tahay a square oo lagu daray b square halkaana waxa la yiraahdaa waa proofing cadeynta Pythagoras theorem hadaba asxaabay casharkan muhiimadiisu waxa weeyaan in ardaygu waxa la yiraahdaa uu garan karo xagee bay ka timaaday waxa la yiraahdo Pythagoras theorem asxaabay waxa leedahay xeerkaas lagu keenay iyadoo la isticmaalay square kana waxa leedahay square kala dhex dhigaya laba square markii la isdhex dhigana waxa ka soo bixi doona dhinacyada ku sameysman doonta 4 saddex xagal kadibna waxa baaraysa area 1
باش سكوير جود اريا سار رادينيسا markii aad raadiso waxaad hadana baaraysaa square-ka labaad kadibna waxa baaraysaa saddex xagalada oo afar xaba ah mid baa soo xisaabinaysa afar baa ku dhufanaysa kadib waxa leedahay area-da gudaha ku jira waxa ay leegtahay area dibadda ku jira area-da gudaha ku jira waxa ku waa area 2 iyo area 3 area dibadda ku jira taalana waxa weeyaan waa area 1 kadibna 2ab 2ab way iskansali doonaan waxa ku soo hari doona c square waxa ay la dhigantaa a square plus b square haddaba asxaabi intaasaan kusoo gabagabaynayna xiisadeena maanta inta aynu ku kulmi doono xiisadeeda xigta waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah